waxaa maanta magaalada Burco ee gobolka Togdheer soo gaaray qalabkii lagu dhisi lahaa wadada isku xidhi doonta gobolka Sanaag iyo gobolka Togdheer. qalabkan ayaa maanta waxaa sii sagootiyay qaar ka mid ah madaxda gobolka ugu sarsareysa oo warkacaya gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiriye. waxaana sagootintii intii lagu guday jiray tilmaamay inuu qalabkani wax ka tari doono wadada isku xidhi doonta labadaasi gobol. waxaana hadaladiisii ka mid ah halkan maraya qalabkii ama macdaankii loogu talagalay jidka dheer ee isku xidha Togdheer iyo Sanaag magaalada Ceergaabo iyo Burco isku xidhayay jidka qalabkii dhisay kuwa maanta halkaa maraya ay taniska maraysa waxa meesha maraya waxa filaya media ka daawan kartaa dadka inta aan halkan la joogin afkiin waxa la quruqotay ku dhasho wax kasto la hadalhayaba wixii la waday iyo hawshii la waday ee la qaban qaabiyay wadada madaxweynuhu dhagax dhigay doorkii gobolka inta maraya waxaan leeyahay guuleysta hawshiina si dhaqsaayo bilaab doontaa reer Ceergaabana waxaan leeyahay waxaa ka daawanaysaan oo idin rumoobaya in wadadii bilaabmayso si rasmi ah u bilaabmayso ayaamaha soo socda. waxaan leeyahay waa guul way ka soo baxday ballanqaadkii ay qaaday ahaa inay soo iibinayso macdaadkii lagu bisaayay wadada Ceergaabo. waxaan leeyahay dadweynaha reer Ceergaabo iyo bulshada gobolka Togdheer ballanqaadkii ay ballan qaadeen inay iyaguna ka qayb qaadanayaan dhismaha wadada maadaama diyaaradii dawladda ay diyaar garowday oo qalabkeeda dhaafinayso maanta shacabka reer Ceergaabo iyo shacabka reer Togdheer iyo reer Somaliland ha diyaariyeen qaanaankii ay ku darsanayeen wadada. waxaa kaloo iyaguna sagootintaasi ka hadlay taliyaha qaybta booliiska Cabdi Muuse, taliyaha saldhigga weyn ee magaalada Burco Jaamac Baadi, gudoomiyaha dib u dhiska madaarka Sheekh Cali Mawlid iyo xildhibaano. waxaana hadaladoodii ka mid ah ka qayb qaadatay hawsha qaranka Soomaaliland ku dhaqaaqay ay maartay wadarkaysan bidii caafimaad qaba way arkayaan kullu waxa weeye waxa loo baahan yahay oo kaliya inaynu ahaano isku duubnaan iyo wada qabsi dhammaanteen shacab iyo dawladba meel kasta aynu joogno inaan dhinaci awalba dhinac baynu wada jeedno inaan nimkana dhinac u wada jeedno. anigu waxaan ku darayaa ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu wa tacaala inay hawshatan ilaahay inoo dhabeeyo qalabkani isagoo nabada oo hawshii bilaabay oo hawshaasi ay dhammaatay iyadoo qalabkaasi uu weli si shaqaynayo oo dabadeedna ay u suurtoodo markaa meelaha kale ee looga baahan yahay sida barasaabku maaragtay iyo madaxda gobolka ay sheegeen. halkan waxa ka aragtaan oo warbaahintu ay idin soo bandhigi doontaa qalabkii ama macdaadkii loogu talagalay in lagu dhiso wadada isku xidhi doonta gobolka Sanaag iyo gobolka Togdheer. runtii wadda ka mid ah ballanqaadkii madaxweynaha Jamhuuriyadda. kastaba ha ahaatee qalabkan ayaa wax weyn ka tari doona wadada isku xidhi doonta labada gobol ee kala Togdheer iyo Sanaag.